الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين والله يعني وقت كل إلى الوجه بس وحى ونكسل أديك خطبتي فهمي وحلقها اللي يوحى تصاب سنين إن أتكلم قطوسية فإذا ولا نقصر أولا وحى نسكلا دردار مينا تقوض الله يعبسيد إلهي الله سبحانه وتعالى وحى دردار ما يعبسيد وحى يري يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يعني الله كعب صدق هنادي منينا إذيك أو مسلمين أهمويان تقوى إلهي يعني إن تكودك حل والباء يمر والباء تقوى واحد وقت فائدونك ووين أي لا الله سبحانه وتعالى مر والباء الله كعب صدق إنه واحد والباء وجزء زائدة وكغفر يو مال أتكبحه ونكا أرزق يو مال آذن مركا أدو آذن قرنين ويرزقه من حيث لا يحتسب قفك الله سبحانه وتعالى كعب صدنا جنوبتي سقوطا أيا لنافيا ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا مركة تقوى إلهي أولا هالوجود ذاله مركة حكت خطبتنا وحا يقصها في سنين وحا الويقى إنه حنطة نميمة اسكو dirka والله wax oo fudud qofku uu iska jari karo hadana qofka sida uu isaga jari karo si leeg dagi kara ama qofka yaani si fudud inuu ficilada sameeyo oo uu san dareemaynin ku imanaya oo san qofka markuu uu san islahayn marka uu waxa sameeyo wax weyn baad sameynaysa hadana uu nabigu yiri yaani dadka wajin mar lagu tuurayo naarta ilaa wax ay ficiladoodu sameeyaan oo uu carabku sameeyo carabka waxa uu qoranayo wad celin karta balse marka uu dhahayo ayuu ku dagaya shaydaani oo uu ficil wax yar oo allaahta ku galayso ayuu ka gudbinaya walaalayaal xanta sida yaani aynu u filayno maaha nabiga sallallahu wasalaamu alayhi waa uu taariifiye ama waa uu qeexay waxa xan la yiraahdo xan waxa la yiraahdo Soomaali waxa ka faahsan tahay maaha marka aad ku tiraado qof war qofkan ha xamanina kada waxa uu ku leeyahay war anigu miyaa ma ka sheegay wax uu yahay mooyaane waxa uu yahay baan idin maahan anigu wax kale kama sheegin nabiga sallallahu wasalaamu alayhi waxa uu ku taariifiyay qaado kuna dhaqan nabiga waxa uu yiri dhikruka akhaaka bima yakra wa walaalka oo aad ka sheegto marka wax uu nacayo wax uu yahay balse uu nacayo ama uu karhayo uu san jeclayn inaad ku tiraado magac baad u yeeraysaa yaani waxbaad ka sheegaysaa ficilka waa uu yahay dabcan balse asagu ma jecla waad xamatay ogow yaani xantana waxyaabaha waaweyn ay min kabaa'ir dunub loo yaqaano ayay kamid tahay oo toobada u baahan yaani dunubta ayaa kala qaybsanta kabaa'ir iyo sagaa'ir min kabaa'ir dunub ay kamid tahay waxaad ku mutaysanaysaa naar baad ku mutaysanaysaa waxaas aadan dareemaynin Allah subhanahu wa ta'ala waxa uu ku tilmaamay kuwa dadka xanta iyaga oo markaa cunaya walaalkaaga meydkiisa adiga oo cunaya ayaa la mid tahay halka ay gaarsiisan tahay ficil u fiirsan yaani xumaanteeda Allah subhanahu wa ta'ala ayaa misalka ka bixinaya fakarihtumuhu alayr wa na'aysa yaani walaalka inaad meydkiisa cunto oo aad goosato wa na'aysa sidaas si leeg ayaa laga rabaa inaad u nacdo qof walaalkaaga muslimka ah inaad xamato ama aad wax ka gudbiso nabiga sallallahu alayhi wasallam alayhi hameen baa la deemay laylatul israa wal mi'raj wuxuu yiri waxyaabihi aan soo arkay waxa kamid ahaa qoom yaani cidiyo maar markaasay waxay ku xagarayaan wajiyadooda iyo qalbiyadooda ayay isku xagayaan maartu runtii aad bay u dhibadan tahay yaani waa cadaab iskama deyn karayaan way iscunayaan markaasuu nabiga sallallahu alayhi wasallam alayhi wuxuu yiri waxaan su'aalay jibriil oo waxa yiri jibriil kuwani maxay yihiin sidan ah u dhibaataysan markaasuu wuxuu igu jawaabay kuwani waa kuwii dadka muslimiinta ah acraadooda cirdi yaani sharaftooda ku dhici jiray oo yaani waa dadka xaman jiray ayaa sida loo cadaabaya in cidiyo maara loo sameeyo ayay isku xaganayaan oo ay isku dhibaataynayaan oo aysan iska deyn karaynin halka inaad ku mutaysato wax yaani aad adigu maanta iska dhaafi karayso marka waxa laga rabaa in yaani qofkii waxamanaya nabiga sallallahu wasallam alayhi yaani xanta waxay ku yiraahdeen saxaabadu yaani miyaan ku galayna yaani wax aysan hadii uu soo qofkaasi ficilka uu yahay balkawra markaas wuxuu yiri yaani ficil qofkaasi uu yahay hadaad adigu ka sheegto qofkaas waa xamatay balse hadii uu san wax aadan ahayn sida anagu aanu ka aaminsanay waxaad aaminsantahay adiga qof wax uu san ka sheegtay inaad xamatay maadan xaman markaas ee waad ku been abuurtay nabiga sallallahu wasallam alayhi wuxuu yiri qofkaasi waa uu ku been abuurtay hadii uu san wax uu san qofka ahayn uu ka sheego hadii uu ka sheego laakiin qofkaasi waxa nacayana uu yahay waad xamatay marka yaani qof marka aad wax uu san ahayn ka sheegto